bilowga filimka waxaan aragnaa gabar yar oo waraaqad wax ku qoraysa waxayna gabadhii u soo baxaysaa bannaanka iyadoo sugaysa ilaa ay qoraxda ka soo baxayso waxaana hadda waqtiga ahaa waqtiga salaad subaxa kadibna waxaa soo baxday qoraxdii balse waxaa gebi ahaanba gubtay gabadhii runaatii gabadhaana waxay ahayd vampire oo warqadaasi waxay ku qoraysay dhimashadeeda hadda sheekada gadaal ay kasoo bilaamaysaa 10 sano ka hor cudur ayaa adduunka oo dhan ku faafay warbaahintii waxay hadal hayaan cudurkaasi oo kaliya maxaa yeelay cudurkaasi qofka uu ku dhaco wuxuu isku bedelayaa vampire dadka markii ay vampire isku bedelaan waxay u baahnaan doonaan inay cabaan dhiigga bini'aadamka taasina waa sababta cudurkan si tartiib ugu sii faafay bini'aadamka marba marka ka sii dambaysa tirada vampire-da waa ay sii kordhayeen waxayna ka fogaan jireen iftiinka qoraxda maxaa yeelay haddii qoraxdaasi ku dhacdo waa ay gubanayaan waxayna qaraabin jireen habeenkii oo kaliya waxayna geli jireen baabuurta iyo guryaha si ay qoraxda ugu dhuntaan saynisyahanada iyo khubarada ayaa aaminsanaa in hadda 5% kaliya ay bini'aadamka adduunka ku soo hareen inta kale waxaa qabsaday cudurkii vampire-ka sababtaas aaweed vampire-ku waxay noolaan karaan oo kaliya hal bil sababtoo ah dadka bini'aadamka ayaa yaraa mana heli karaan dhiig iyo ku filan oo ay ku noolaadaan ma jeclina filimka kaga dhexgalo balse haddii aad weli muuqaalka iska daawanayso oodan noo laagaray muhiim ayaa noo tahay haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir hadda bini'aadamku waxay ku fikirayaan qaabkii ay vampire-radan uga hortagi lahaayeen shirkadii halkaasi ugu weyneed waxay qorsheynaysaa inay samayso dhiig been abuur ah kaasoo shabahsada dhiigga bini'aadamka oo kale Dr. Edward ayaa sidoo kale ku lug lahaa tijaabadaasi dhiiggaas lagu qaldaayo vampire-rada shirkadii Dr. Edward ayaa bilowday inay soo qabato dadka qaba cudurka si ay ugu tijaabiyaan inay ka saari karaan dhiiggooda si dhiig cusub ugu shubaan waxayna doonayaan inay vampire-rada u sameeyaan dhiig ay ku noolaadaan Dr. Edward isaga naftirkiisa xitaa waxa uu ahaa vampire waxuuna ku daaray noloshiisa mana uusan jeclayn inuu bini'aadamka uu noqdo vampire waana sababta oo markaas u joojiyay cabista dhiigga dadka waxa uuna bilaabay inuu ku noolaado dhiigga xoolaha oo kaliya hadda shirkadiisa waxay qabanaysaa shir waxayna ogaadeen in vampire-rada sababtay dhiigga bini'aadamka u jaqayaan ay tahay inay u baahan yihiin dhiig oo kaliya haddii vampire-rada ay helaan dhiig badan oo ay cabaan waxaa markaasi ziyaadi doonta korriinkooda iyagoo markaasi oo jirkaadii koraya waxayna markaasi yeelanayaan baal dheer iyo dhago dheer waxay markaasi sii noqonayaan dilaayaal weyn waxay madaasi ka dhigaysaa dhan markaas noqdaan vampire khatar ah sababtoo ah waxay markaasi dili karaan cid kasta oo markaas ku sugan adduunka taasina waa sababta looga cararayo khatarta markaas leeyihiin vampire-rada madaxda Dr. Edward ayaa markaas ku amray inay markaas wax kasta sameeyaan iyagoo markaas ku amray inay tijaabadii dhiig abuurista sameeyaan waana inay tijaabadani maanta ku sameeyaan vampire-rada isla markiiba waxay soo qabtay vampire iyagoo markaas saalada saaray si ay markaas dhiig cusub ugu shabaan oo ay u tijaabiyaan laakiin isla markiiba ninkii vampire-ka ah waxa uu dareemaya xanuun aan caadi ahayn isagoo markaas rafanaya isagoo ugu dambeyntii vampire-kii ugu dambeyntii qarxaya waxaana markaana Dr. Edward ka fashilantay tijaabadii uu sameeyay markaana Dr. Edward waxa uu soo qaadanaya gaarigiisa isagoo markaas soo baxaya waxaana waqti xadirkaasi cabayay sigaar waxaana soo xasuusanaya haddii vampire-rada dhiig badan helaan inay dhagahooda dheeraan doonaan isla markiiba gaar ayaa ka hor imaanaya midaas aaweed waxuu markaasi galayaa shil aanan caadi ahayn waxuuna markaas ku siganaya inuu shilkaasi ku dhinto waxuuna kasoo degayaa gaarigii laakiin markii uu gaarigii kasoo degay waxaa filaan kusoo weeraraysa gabar waxuuna markaana ogaanaya in gabadhaani iyo asxaabta la joogto ay markaasi ahayeen bini'aadam isla markiiba waxaa halkaas imaanaya baabuurka booliiska kaasoo doonaya inuu dadkaasi qabqabto sidaan ognahayba bulshada magaaladani ku nool badanaa waxay u badnaayeen vampire-rada laakiin ninka Edward waxa markaas asxaabta ku qarinaya gaarigiisa isagoo markaas ka badbaadinaya booliiskii maadaama booliiska xitaa ay vampire ahaayeen markaana Dr. Edward asxaabta u badbaadiyay waxay u mahadcelinayaan badbaadintii u badbaadiyay naftooda iyagoo halkaas isaga tagay markana ninka Dr. Edward waxa uu yimid gurigiisa waxaana jiray walaalkiisa ka yar kaasoo gurigiisa ugu yimid si uu walaalkiisa ula dabaaldego dhalashadiisa dhab ahaantii Dr. Edward walaalkiisa waxa waa mid ka tirsan ciidamada waxuuna ka mid ah dadka badanaa ugaarsada dadka bini'aadamka ah laakiin Edward walaalkiisa wuxuu markaas u keenayaa dhal dhiig bini'aadam ah laakiin Dr. Edward waa uu diiday inuu cabo dhaladaasi sidaas daraadeed waxa uu bilaabay inuu la doodo walaalkiisa ayaa xanaaqay isagoo markaas dhaladii derbiga ku tuuray waxa uu jebinayay dhaladii laakiin waqti xadirkaas waxa halkaas imaanaya makhluuq aan caadi ahayn kaasoo soo uriyay dhiiggii la tuuray waxuuna bilaabay inuu dhiigga markaas ka leefto gidaarka kadibna walaalka Dr. Edward waxa uu soo qaadanaya mid si uu naftiisa u badbaadiyo sababtoo ah makhluuqan waxa uu sidoo kale dili karaa vampire-rada kadibna waxa soo weeraraya makhluuqii laakiin ugu dambeyntii Dr. Edward walaalkiisa waxa uu ka taqalusay makhluuqii isagoo halkaas ku dilaya waxaana isla markiiba halkaas soo gaaray ciidamada booliiska waxayna heleen faraanta makhluuqii gacanta ugu jiray waxayna ogaadeen inuu makhluuqaana beeray ninkii Dr. Edward ahaa waxa kale oo makhluuqaana jirkiisa lahaa calaamad aan caadi ahayn markaasna waxay ogaadeen inuu dhiiggiisa cabayay dhiig yaraan tahay awgeeda markaana waxaan aragnaa ninkii Edward oo la kulmay gabadhaana waxay ahayd gabadhii ku soo qabanaysay falaarta gabadhaana magaceeda waxa lagu magacaabaa Andre
waxaana markaas Dr. Edward ka qaadaysaa kaarkiisa iyadoo markaas ogaanaysa inuu ninkan yahay dhakhtarka dhiigga iyadoo markaas xaqiiqsatay inuu ninkan caawin karo intaas kadib waxay la wadaagaysaa asxaabteeda iyagoo si faahfaahsan u ogaanaya Dr. Edward waxa uu yahay waxay markaan u soo celinaysaa kaarkiisa iyadoo markaas u sheegaysa inay doonayaan cudurkan dunida oo dhan saameeyay inay dunida ka daaweeyaan kaasoo ka dhigay bini'aadamka dhan inay dabar go'aan oo isku beddelaan vampire markaana Dr. Edward waxa uu la kulmayaan in ay isla shaqayn jireen wuxuu markaas u sheegay inaysan wax macna sameeynin in la abuuro dhiig been abuur ah sababtoo ah vampires ka dhiig badan ka dhargay waxay u baahan yihiin dhiig dhab ah waxayna diyaar u yihiin inay dhiigaas lacag badan ku bixiyaan laakiin waxa hore ciwaan uu siiyay gabadhii Andre iyadoo ku tiri haddii aad noo baahanto halkaas ayaad nooga imaan kartaa kadibna Dr. Edward uu soo baxay isagoo markaas soo aadiyay ciwaankii markaas u sheegay gabadhii Andre waxaana soo qaadanay gaarigiisa isagoo halkaas ku kulmay gabadhii Andre waxaana markaas u sheegayaan in vampire-radan ka hor dadka ayaan bini'aadam laakiin inta halkaas ku sheekaysanayna waxa halkaas imaanay walaalkii Dr. Edward waxaana markaana doonaya Dr. Edward walaalkiisa inuu asxaabtan iyo walaalkiisba qabto laakiin isla markiiba gabadhii Andre iyo asxaabteedu waxay halkaas ka bilaabeen dagaal iyagoo halkaas ka cararaya waxayna isla markiiba fuulaan gaarigooda waxayna dhaqaajeen gaarigii laakiin waxa raacdeysanaya Dr. Edward walaalkiisa isagoo markaas xabadeynaya waxaana doonaya inuu asxaabtan gacanta ku dhigo intaas kadib waxay ugu dambeyntii soo gaarayaan meel ammaan ah iyadoo ugu dambeyntii uu ka haray Edward walaalkiisa hadda ninkii ka badaa gabadhii Andre asxaabtiisa kaasoo bini'aadamka ee markaas ka sheekeynaya taariikhdiisa waxaana u sheegay inuu isaga hore makaanik u ahaa waxaana shil la galay gaari isagoo markaas ugu dambeyntii ku dhacay webiga waxaana markaas gubinaya jirkiisii kadibna waxa ogaanaya inaysan qorraxda oo dhan saameynaynin maadaama uu isaga biyo ku dhacay waxaana markaas noqonaya qof caadi ah intaas kadib dhammaantooda waa ay soo baxayaan iyagoo markaas imaanaya dhisma halkaasna waxaa joogay dad kale meeshaan run ahaantii waxay ahayd Andre halka hooyadeed iyo aabaheed ay degan yihiin laakiin Dr. Edward ayaa markaas ku tijaabinaya ninkii dhiiggiisa uu isbedelay oo isku bedelay bini'aadamka waxaana ninka Dr. Edward isku dayay inuu markaana ogaado inay midaan sabab u tahay gubashadii uu gubtay oo ku dhacay webiga laakiin hadda Dr. Edward waxa uu fahmayaa wax walba isagoo markaas ogaanay inuu vampire noqon karo bini'aadam caadi ah maxaa yeelay gubashada ay gubanayaan maaha inuu bini'aadamka gubanayo waxa gubanaya vampire-ka dhanka kale waxaa markaan aragnaa shirkadda Dr. Edward waxaana markaan halkaas ka jirtay dhiigraan baahsan iyadoo markaas ay laayeen vampire-radii wax dhiiga oo ay siiyaan laakiin vampire-radii gabaantoodba waxaa bedelantay xakamaynta naftooda waxayna markaan vampire-radii bilaabeen inay dadka haray baabi'aan oo markaas ay jaqaan dhiigooda intaas kadib waxaa markaan aragnaa gabar ilin oo markaas saaran gaari waxayna wiilkan iyo gabadhan ahayeen dad caadi ah waxayna u socdeen meeshii ay markaas joogeen gabadhii Andre laakiin intii ay soo socdeen waxaa halkaas ku soo weeraraysa askar waxayna askartaani doonayaan inay bini'aadamkan u geeyaan vampire-radaasi markaas ay dhiigeedu u jaqaan waxaana markaan gabadhii soo wacaysaa naagtii Andre laakiin waxaa gabiyaanba soo afjaraya askartiigu halkaas ku dilaya markaana waatan naagtii Andre waxayna markaan doonaysaa inay halkaan ka tagaan maxaa yeelay qorshood xigayaha inay vampire-rada u bedelaan bini'aadam balse markaana waxaa kale oo ay doonayeen inay ninka Dr. Edward u bedelaan bini'aadam waxaana markaas wadayaan ninka Dr. Edward ahaa waxay markaas gelinayaan mashiin si ay markaas sidiisii hore ugu soo celiyaan markii uu diyaar noqday waxa markaas lagu furayaa dabkii waxaa markaan korkiisa oo dhan ka kacay dab aad u tiro badan laakiin gabadhii Andre ayaa markaas qaboojinaysa waxaana markaas isku bedelaya bini'aadam marka intaas sameeyaan waxa halkaas ku soo weeraraysa askartii iyagoo markaas doonay inay qabtaan dadkan bini'aadamka laakiin askartii markii halkaas yimaadeen waxa halkaas ka waayeen ninka Dr. Edward iyo howlwadeenadii kale sababtoo waxay ku dhuumanayeen haanta biyaha askartaan waxaa ka mid ah Dr. Edward walaalkiisa markaana Dr. Edward walaalkiisa waxa halkaas ku dilay gabar markaas ka mid ah bini'aadamka laakiin markaana waxaan ogaanaynaa in ciidankan iyo Dr. Edward walaalkiisa uu markaas u soo diray saaxiibkiisa iskala shaqeynayeen shirkadda waxaana saaxiibkiisa doonaya in markaan dadkii oo dhan loo bedelo vampire si ay markaas dadka isku laayaan waxaana markaas u soo diray Dr. Edward walaalkiisa soo markaas u soo qabto isla walaalkiisa laakiin mid kale oo jirta ay ahayd magaalada oo dhan waxa laga xayiriyay saahidii markaas laga bixinayay dhiigga oo maxaa yeelay ma jira wax dhiigga oo laga bixinayo magaalada waxaana markaas magaalada ka jiray qas aan caadi ahayn hadda waxay ciidamada lagu amray inay soo qabtaan mawluuq kasta oo ay dilaan sababtoo ah makhluuqyadaas waxay khatar ku noqon doonaan iyaga intaas kadib waxay ogaanayaan inay magaalada markaan uu qas weyn ka socdo maxaa yeelay waxa markaan isku jeestay vampire-rada iyagoo markaas iscunaya markaan askartii waa ay soo baxeen iyagoo markaan ugu dambeyntii soo galay magaalada si ay markaan dadkii u soo celiyaan sidoodii hore markaan waxaan aragnaa Dr. Edward iyo asxaabtiisa waxay markaan ugu dambeyntii yimaadeen magaalada dhexdeeda si ay markaas u soo gaadaan magaalada dhexdeeda jawigeeda sida uu yahay waxay markaas wateen qoryahooda iyagoo markaas iska ilaalinaya vampire-rada intaas kadib ninka Dr. Edward waxa wacaya walaalkiisa si uu markaas u liishiyo laakiin walaalkiisa ayaa markaas u imaanaya balse walaalkiisa ayaa askar u balamanaya waxaana halkaas u imaanaysa askar waxay markaas askartii xabad ku dhufanayaan gabadhii Edward intaas kadib Dr. Edward waxa markaas u imaanaya saaxiibkiisii kaasoo soo xirxirayay qorshahan oo dhan waxaana saaxiibkiisii doonayay inuu dalidan oo dhan ka dhigo wada vampire-ro waxaana markaan wada fariisanaya isaga saaxiibkiisa iyagoo markaas sheekaysanaya waxaana gadaal ugu imaanaya Dr. Edward walaalkiisa isagoo gadaal ka qaneynaya Dr. Edward saaxiibkiisa
waxaana markaas soo waday askartiga oo markaas soo gelinaya qol waxaana isla markiiba ku soo kala cararaya askartiga oo markaas dhiiggiisii jaqaya waxaana markaan halkaas ku dhamaanay filimkii balse maanta muuqaalkeena waxa waa mid aad u xiiso badan intaan muuqaalka arimeedka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabaadiino.